waxay ahayd ardayad da'deedu ay tahay 20 jir sanadkan ka qalin jabisay iskuulkeeda Al-Najah si ay u gasho jaamacad rajadeedu waxay ahayd inay noqoto doctorayso badbaadisa bulshada qaybaheeda kala duwan balse nasiib darro waa la kufsaday waxaana laga soo tuuray dabaq 6 biyaana ah alla taasi maxay xanuun badan tahay marka laga hadlo sheekada aan rabay inaan idiin sharaxo waa mid xanuun badan taasi oo ay adag tahay inaad dhageysato isku day inaad dhageysato fariintan oo aad gaarsiiso qof walba oo wax ka bedeli kara sababi karana in gabadhan ay cadaalad hesho adigoo like saaraya muuqaalkan una share gareynaya asxaabtaada wad ku mahadsan tahay la socodkaaga tani waa sheeko ciwaankeedu yahay mid laga xishoodo iyo mid aan laga aamusi karin oo ah kufsi xanuun badan taasi oo taabanaysa qoys qurux badnaa oo lagu dumiyay mid ka mid ah riyooyinkoodii nolosha kuma galay dambigaasi kuma fududeeyay dhicidda falkaasi argagaxa leh waa ka arxan laawaha gooyay nafta walaasheen ka hor inta uusan riyada nolosheeda duminin arrimaha la xiriiray ciwaankan kufsiga ah waa kuwa marmarka qaar dadku ay iska indhatiraan balse waa xaqiiqo ay tahay in laga hadlo oo aan laga aamusi karin sida ay ku dhacday kufsiga gabar hami iyo riyo weyn ka lahayd adduunkan quruxda badan imise qof ayaa ka qayb qaatay kufsiga gabadhan shakhsiyaad ka fududeeyay halkee ayay sheekadu ka dhacday haddiise laga soo tuuray mid ka mid ah hoteelada Muqdisho sheekadan sidee ayay u dhici kartaa baa su'aasha miisaanka leh oo uu qof walba isweydiinayo waqtigan horka hadalka sheekadan waa inaan cadeyno in arrimaha la xiriira kufsiga ay yihiin kuwa inta badan ka dhaca gobolada dalka balse dhacdadan waa mid aan muddo ka dhicin caasimadda Muqdisho sidee ayay ku dhacday in gabar rajo badan ka lahayd nolosha ay kufsi wadareed u geystaan wiilal ay wadaagaan jinsiyad diin dhaqan iyo waxyaabo badan oo ay ku badbaadi kartay gabadhan dhacdada noocan ah ayaa aad ugu soo laabanaysa qaybo ka mid ah magaalooyinka Soomaalida taasi oo anigu aan ku sababeyn karo magaratada falalkaasi geysta oo ugu dambeyn aan ciqaab toos marin laakiin tani waa mid aan rajeynayo inay furi doonto bog cusub oo ku aadan sheekooyinka la xiriira goynta nafta gabdhaha iyo weliba kufsigooda sheekadan waxay taabanaysaa Xamdi Maxamed Faarax oo ah gabar ku nooleed magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxna ku baratay waxaan xalay lagu kufsaday sida la sheegay mid ka mid ah hoteelada ku yaala Muqdisho gaar ahaan degmada Waaberi ee gobolka Banaadir sidii xaqiijiyeen warar badan oo xaqiiqo lagu tilmaami karo dambiilayaasha ayaa ugu horreyn burburiyay rajadii gabadhan ay ka lahayd adduunka kadib markii ay kufsi wadareed u geysteen sida la tilmaamayo kadibna intaas kuma aysan ekaanin dabaq 6 biyaana ah ayaa laga soo tuuray waana dhacdo xanuun badan uusan qalbi caafimaad qaba aqbali karin sida ay ku dhacday sidan oo waxa ilaa hadda la isweydiinayo saacado ka hor waxa la aasay Xamdi aaskeeda waxa ka soo qayb galay qoyskeeda iyo qaar ka mid ah dariskeeda oo ka qayb qaadanayay aaska gabadha ay arki jireen iyadoo wax baranaysa oo rajo fiican ka leh barashada waxaana ay goobjoog u noqdeen aaska gabadhooda oo shalay sinabada xiliyaan islaamay afar saac هذه qof nadiif ah maaragtay waxbarasho ku jirtay sanadkan hadda aan ku jirno koonfurka u fadhiisatay hami waxbarasho waa ay yar u aayeen waxaana ku wargeliyay gacmo ka sidoo kale si murugal ay hooyada dhashay gabadhan uga hadashay kufsiga loo geystay gabadheeda iyo dhimashada sababtay in dabaqa laga soo tuuro hadaladeeda ayaana laga dheehan karaa inay aqbasho ajasha laakiin taasi ay tahay wax aysan hurdada ka ledi karin oo habeen walba uu nolosheeda ka dhimanaya xasuusan doonto intii iskoolka sanad dugsiyeedka imtixaamada iyo la diyaarinayay oo hadda ugu dambeysay suuq ana aada suuqa ii raacaysay waan ila iimaanaysay maalmahana guriga ayay joogtay shalay subaxdii meeshan hadda ay fadhidiin baan iskula quraacnay ani gabar ila dhalatay waan ka tagnay 4 saac ma la ahayd ayaan dhar u soo dhaqaa un bayna tiri ayay jimcada ka saadi jirtay dharkana ka soo dhaqi jirtay anakana taymka un baan ugu dambeeyay ayna tiri ayaan aadayna qof aan hadda aan ogahay oo dhihi karo qofkaas ay xiriir la lahayd ma jirto gabar wax oo shukansanaysay laakiin hadda qof taargad iyo aan dhihi karo qofkaas sebel ah ma jirto waxaan codsanaynaa hadii cadaalad jirto oo wadanka cadaalad ka jirto qofkii dhibaatadaas gabadhan u geystay in sharciga islaamka horta noogula mariyo
qof kasta oo naxaya hooyo walba oo naxeedo aabba kasta oo naxaya qof kasta muslina ee danaynaya dhibaatada qabsataana kana ayakana inay qabsanayso hadda dadka dhibaatada sameynaya oo gabadhaas ku sameey gabar kasta Soomaaliyeed ku sameeysanay ay ku sameey karaan saacado ka hor waa la aasay Xamdi waxaana ay noqotay shalay noqotay dhamadka qisada gabar 20 jir ah oo muddo badan wax baranaysay sanadkan ka qalin jabisay dugsiga sare jaamacadna isku diyaarinaysay Allah u naxariistay marxuumad Xamdi waxaa lagu aasay qabro ku yaala degmada Daynile ee gobolka Banaadir sida ay wararku sheegayaan ugu dambeyn waxaan aniga ahaan tacsi tiiraan la u dirayaa dhammaan reerka iyo ehelada ay Xamdi ka baxday waxaan loogu baryayaa samir iyo iimaan iyo in bedel khayr qaba loo siiyo daawada muuqaalkan haddii uu ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa inaad share gareyso muuqaalkan aad ku muujiso emojiga dareenkaaga ah cadaalad ay u baahan tahay